waxaan leenahay example 1.8 example sideedaad chapter koowaad waxaan la siiyay isla spring kala baxaysa marka waxaan leedahay waxaad soo heshaa haddaad haysatid masskaagi iyo spring constantigaagi soo heshaa periodka iyo frequency waxaan leenahay marka maanta ma haysano waxa la yidhaahdo qaacidadeedii ahayd root a oo omega yes marka waxaan leenahay intaan markaan haysano period a waxaan leenahay period t muuqaal b iyo waxaan qaadanaynaa f oo frequency labada haddaan soo helno mid ka mid ah kale waxaan uga dhigaynaa inverse yes period waxaan leenahay marka wuxuu leeyahay yahay root 2 by alpha m root 2 by times m alpha k وكذلك t وحلمتها لنا 2 by yes 2 by ولو في اوميجا yes f مركز هذا فيري اوميجا حتى عندنا بنقول k alpha m اوميجا وحلمتي لنا كنتي m تنضع k تنضع احلام ولو في شيء 0.5 وحلنا اوميجا وحلمتي هي لaba boqol oo loo qaybshay 0.5 this waxaa noo soo baxay in omega uu lamid yahay yes omega wuxuu lamid yahay root laba boqol divided by 0.5 this omega yes omega equal wuxuu lamid yahay 20 rad per second mar haddaan omega haysano waxaan simple isticmaali karnaa qaacidadeena tan waa isticmaali karaa kadalika ana waa inta soo isticmaali تي وحنا متعلم 2 by root omega هنقول لباتن this وحنا كنا 1 لبا وقيمنا 10 pi alpha 10 seconds this وحنا متعلم 3.14 or pi value pi لو قيم شيء 10 وحنا متعلم 0.314 seconds ده وحنا هو equation A جنب واحد equation B frequency yes f waxay lamid tahay omega alpha 2 by yes omega divided by 2 by f aan raadinayna meel waxaan qaadinayna 2 by yes omega hana waxaan haysanaa 20 rad per second oo loo qaybshay 2 times 3.14 yes this f waxay lamid tahay value is so qayb waxaa leedahay 20 loo qaybshay laba lagu dhuftay 3.14 yes waxay lamid tahay 3.184 hertz وكذلك inverse كده استعملنا هو اف حلمتها 1 of t ماشي هنقول صار بحر 1 لو قيب شيء 0.03 وسكندز كان وصل يس 0.03 يس 0.34 0.314 سكند انت هذا شو قيب هذا 1 divided by 0.314 وحلمتها 3.184 hertz yes وكذلك مركب عشقون الأوجه ده